ما شاء الله ما شاء الله صياع صياع وصياع ما شاء الله قول يقبلني ما كان عضي أدير هلولة أبا هلولة أو هلولة أو إندي هلو قلي إيش يحاول سنة لا قلي في حدي كوتشرتي اللوكت كوتشرتي ينبرك أنت لك إلهي سبحانه وتعالى وحو يفرش خير قبوفري أو قليل لو سمينيو والله بينو داورنا صدقديو قاعدي لعجيو قاعدي قفل بإلهي مراتك هوسار سيشر قرب برنامج كقوليو قبل ما خدع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل توعنا ونكسر قصور هذا برنامج كان Iftiiminta XaqiiQooyinka iyo walaalka aftax boodhir ile goob kasta oo joogta Ilaahay waxa idinka bariyaa cimri dheer iyo caafimaad qof kasta oo barnaamijkaas soo gaaro ha sii share gareeyo si aabeen Hilowle arintiisa oo dhameystiran Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadiisa waa isku eegaya Ilaahay isu naxabu yiraahdo naxariiste si aad intan ay maanta joogto uga sii fogaato barnaamijka sii share garay channelkan subscribe ku saar hadaad ku cusub tahay hadaad hore nolol joogto xirta caashqa mataane waxaan ka codsanayaa barnaamijka inaad sii share gariso gaarsiisid ummadda Soomaaliyeed Aabe Hilowle waxa lagu sameeyay Qaliin Lacagihi ما شاء الله ويجارين أنا قيمت هيدي وادر صدي لكن واحد رمضان الصوماليين فرينا هالك عمريو ضد صوماليات أو ولاء أو محسنين أو ونعكسن أو خير خبابا إلى صحريري أو الضمعين اللي عجها أنا صوماليان أرنتها وان كعذر دارتي حدا يديك وين دي شقيا ولا يارو ومدي هاي صومالي خير كخبطة وناك يوم وحوي دوري سيني أشرك الشقيسطو أشرك إن يدخل تشوش هسكفرنا أنا تشوش هيكفرنا aabehen Hilowle lambarkiisa shaashada idin soo dhigay waka waad aragtaan soo sawiraan idin soo dhigay lambarka waxa ku qoran Hilowle Cabdiraxmaan Cabdinuur baa ku qoran waa lambarkiisa ana ku diray lacagta lambar saasa ii soo baxday qof kasta markuu ku dirayo lambarka waxa uu soo baxay lambarka markuu galiyo aabe magaciisa uu soo baxay inuu soo ku qoran yahay marka walaalayaal waxa sameeyaan qof walba lambarka meesha ka qaado si toos ah adigoon cid kale u marin adoon cid kale wax ugu dhiibin adigoon cid kale waxa weeye yaani ma gaari doonta maxaaba ama kale wixii maanta xaawo aroosiyo maxaa xisaabtaba kale maxaaba ama ku gelinaya si toos ah aabe lambarkiisa gali waxa ku soo baxay Hilowle waa lambarka uu gacantiisa ku haysto isaga leh wax kasto aad ugu ridinayso toos ah biidnillaahi ta'ala ugu tagaysa marka walaalayaal waa ka cudur daartay mas'uuliyadda ma qaadi karo xumaana igama aha ceebna igama aha inaan idinka baqayo oo idinka shakisanahay maaha ee waxaan doonayaa qof waliba ajarkiisa iyo xasanaadkiisa si toos ah inuu meeshu rabay u gaadho marka inta waa ka cudur daartay aad iyo aad baan u mahadsantiin halka shaashada baan idin soo dhigayaa lambarka saacad kasta iyo xilli kasta waa idin soo dhigayaa si aad aabe arintiisa u dhameysaan inta dabadeed aabe Qaliin baa lagu sameeyay aabe Hilowle waxa weeye meesha waa laga soo kaxayay meel baa la geeyay waa loo soo labisay wad arkaysa maanta waqti dhakhtarka la geeyay indhihi iyo ishii wati check-ka lagu sameeyay haddaba maxaa haray toos bay u daawanayna wuxuu maxaa baday hadalka keenay ba hadal bagam toos bay u daawanayna aabo Qaliinka lagu sameeyo ishii loo qalay nimcada barwaaqada wax yar baa inoo haray horta klibkana waa daawanay ودخاتيرتي وضركان أبر وكا قول يقولني ما كنت علي أبو وكا أبو هلولة ولا قلي نبركي هل كاكي لبودة دا وكسعون واي وصاولت كنتروني وديباتو كهيسي يشي لبدي بأرنتو دي ما شاء الله دعاء كسو كبا وسو دعاء إن شاء الله بإذن الله الكريم وكسو كعيا بإذن الله الكريم حالتي سنوا أوكي صدقني iyo barnaamijkii iyo gobonnimadii dambe waxaan doonaynaa ummadda Soomaaliyeed rabtaa oo halka u fadhinaa aabe Hilowle hadalkii uu yiri in ummadda Soomaaliyeed u rumayso qof waliba riyuu leeyahay riyada awowgeen waxay ahayd ama aabaheen inuu masaajidkiisa iska fariisto tusbixiisa iska rogto kitaabkiisa akhrisado isagoo indhihiisu caafimaad qabaan gurigiisa tago salaad aanay salaad ku gaarin oo isagoo waysa qaba saxdo intaas oo aaba doonayay oo masaajidka ereyga qura ee ina dhibay ee dhamaanteen ba ina gubay ee qof walba uurka uga gubtay waxay haddii aan awoodi waa iska rabi lahaa buu yiri aan masaajidkayga iskaga tukado
وحوي واسديت جر واسجاش جر عنده واسجاش جر واسجاش جر بقوصار رمون كره إلهي بان إذن كل شيء إن حرستي ومضى الصومالية كتكتب هذه شيء dadka ninka xoolaha u dirsaday odayga 90 jira ee aan socon karayn ee indhaha la ee waxa weeye lugtu fiicdu kaga taalay ee xanuunsanay dadkeena Soomaaliyeed saasay u bateen marka aabe insha Allah biidnillaahi kariim masaajidka inaynu geyno inuu masaajidkii wixiisa yoomkiisa wax allaaliyo wixii usoo horta sadaqada yaa la joojin odaygaas wuxuu u baahan yahay markuu dhakhtarka ka soo baxo in la baantu raba aabe wuxuu u baahan yahay in garanaysaay meel uu daga helo wuxuu u baahan yahay wuxuu cuno ilaa inta awal shalay arigaas daba orday maanta waa la qalay indhihiina waa loo qalay nabarkiina waa laga saaro waa dhaawac isbitaal ku jira wuxuu u baahan yahay wuxuu cuno wuxuu u baahan yahay wuxuu cabo wuxuu u baahan yahay wuxuu qashado wuxuu u baahan yahay meel uu dago wuxuu u baahan yahay degaan wuxuu u baahan yahay meel masaajid ka dhow yahay marka arintaas waxa weeye cimri tagay ceeb laguma sogootiye Soomaalidu tiraahdaa waniga hadalkiina gafay cimri tagay ceeb laguma sogootiye Soomaaliya intaan isla asano wuxuu yiri wixii Soomaali u kacdo rabbina aqbalo waa rumooban mahmahdaan waa bedeli برجور وح لورتي وحي راكو كعو ربنا أقبل ورموبا لكن حالته هدر رجي دمر كبار عفين قبل الصومالية نحريستا المضى قبل وحن كل تلفون جاي سوى بحسن مال الله عليه مال لمبر كي كان إننا قرن ما يوام بيج كي فيسبوك لمبر كجري وكساري والله مال أي كهلين إن أنا قرن واحد يسوي أي قبل الصومالية ده ودو أوي أولي بهويين وبرن أولي مروين وبرن يقار عند الرئيجة marka hadda sheekadii wixii rag u kaco rabbina aqbalo waa rumoobaan waxaanu ka dhignay wixii Soomaali u kaco wixii gabdho u kacaan rabbina aqbalo waa rumoobaan halka way aabe maanta halkaas waxa weeye 90% gabdhaha Soomaaliyeed baa sabab u ah in aabe la qalo oo waxa weeye indhihi loo qalo ishi loo qalo oo fiixdi laga soo saaro oo isbitaalka la geeyo oo dhaqaalaha iyo qarashka ugu badan waa aaminsanahay waan ogahay gabdhaha Soomaaliyeed bixiyeen sababtoo inta ila soo xiriirtay kaliya aniga inta ila soo xiriirtay kaliya baa 200 jeer raga ka tira badan markaan 13 gabdhood arko ama 20 gabdhood arko oo qaar aan xitaa telefoonka aan silent uga jiray ama aan arki waayo Facebook iyo WhatsApp iyo telefoonka caadiga iyo Snapchat iyo Instagram meel aan gabdhaha Soomaaliyeed iga soo galay ma jirto markaan 25 dumar arko baan nin arkaa waliba shay u badan marka arintii halkaas maraysa قول يقبلني ما كان عضي قف والبمرات كيسة يمشوا صدقنا أبحي يوقف ونيستي هذا الوالد كونيستي إن شاء الله بإذن الله كريم جندي فردوس وكشلا إلهي بحقون حرسنا يا صدقنا والد كلام بحي أنا مهم صدقنا والد كلام بحيه درجات كيوسي كورني ساتشنوينك يا هدي بارت اللي بعطيه حساب إيش حسابتي حوي كفو ضينسا يا مقصود ويديني يا يكر قاضي ويلك يقبل دادي بس صدقكم بحيم اللي هذا الحاسك يعرورته وقتلك شيء غيركم إنه دقوا ويهردون نقدرنا إن شاء الله بإذن الله كريم كل يبا وحي إلهي درت وبحسد رب سبحانه وتعالى وحي درت وبحسد مصر النقدان عيبك مصر النقطة ربي سبحانه وتعالى كون كان يأدون كان يأدين النفط هذا يجرك هذا يحمنا هذا ربي سميeyay وحي أوجيس وبحسد برواقه يقبلني ما وحنا هاي ولا يكاد حلميس مصيبة كوكو صوتها يا علنيس مصيبة كوكو صوتها بيصدقوا كها علنيس هذا إيجي إنكاره أمورك وهستمع إلهي كاجا فوضينيا أمريكا إلهي كوجو بركينيا إرساقة إلهي كوجو بركينيا وحيالها عجيب كا وحوي أمريكا إرساقة لبده بكردية وحكوك صلاة عبادة يلبو صدقة لبده أسبوع أمريكا نوي ديريان إرساقة نوي كرديان مصيبة كوجو صعبتنا وحوي ولا يجح حجابي مركا قبله الصومالية تمنيرتي الصومالية hooyooyinkii Soomaaliyeed ee sharafta badnaa ee waxa weeye odayga miskiinka u kacay ilaahay waxaan ka bareynaa duuniya aakhiraba liibaan iyo waxa weeye naxnax iyo qamshax iyo barwaaqo iyo arrimo isku fadhiya iyo guul iyo gobonimo iyo inaad aragtid ubadkay si dhalaan fashalaad inaad noqotid baan ilaahay kaaga bareeyay كنت الدولار بحسي تي لواتن بحسي تي كون بحسي بإذن الله تعالى إلهي هرت سنوات كهلسان أدون كنوات كهلسان آخر نوات كهلسان دالي يرى صدق كله رجع يقضياشي قف كستودجا سوماليات آبه هنا دباتيسنا أوي ما تحوي حبين كستو أو شركة كميرة
ودعينيس إهل الصلاة بوها إهل الدين بوها نين إلهي يقام بوها دنيا الظروف بهيسي كلينا ما هي وقاعدة الصومالية ودبناهي dadkeeni waa dhiban yihiin waa rafaadsan yihiin in badda lagu shubay iyo in saxaraha ku dhimatay iyo in dalkii xanuun la joogta iyo inaan laga warhaynin iyo in xubnahooda la iibsanayo noqday waxa halka ina dhigana waa qabyaalad waxa halka ina dhiga waa dawlad la'aan waxa halka ina dhiga waa xasidnimo waxa halka ina dhiga waa suquudwa waxa halka ina dhiga waa diin daabiye iyo nacayb dhexdeena la dhigay waxaan malaynayaa inaan falanahay waxaan u malaynayaa ummadda Soomaaliyeed Kenyaanka xun iyo Etoobiyaanka xun uray inay falay marmarinay dadkani dad miir qaba ma aha waan malaynayaa sababtoo ah dad Kenyaanku waa 25 qowmiyadood 25 diimood baa ka jira Ethiopia iyada warkeeda badaa haddana cid haysata iyo cid isku dhagan qof waliba dantiisu u foofa noloshiisu raasada dad gabigood ba 20 milyan aan gaarin oo isku diin oo isku dhaqan oo isku afa oo isku cunto ah oo isku dabeecad ah oo isku dhiiga wax allaani wax isku haystaan uu garan maayo ugu yaraan dadka Soomaaliyeed waa falan yihiin markay u yar tahay ya falkii waa weynaa waliba ki Hindiya la inoo soo qaad baan u malaynay markaas inta waa weyn wax garadka iyo siyaasiyiinta iyo ismada iyo nabadoonnada iyo intaas la cabsiyay baan malaynay de waxaan wax ka badan xalaali waxaan isku hayno iyo wax naga dhaxeeya iyo waxaan isku diidanahay bal ummadda Soomaaliyeed la dhex fadhiisto diyaar maxaa isku diidantiin waxay sheegi karaan ma jiro adduunkii baa yaabay waxaad arkaysaa jabhado iyo dawlado iyo maamulo is haysta oo caalamka markay joogaan oo is salaamayaan ani war xasan nuuxaasha afaad ku reerka war wallahi ma sha Allah ha dadkii dhexdhexaadinayay ee u yimid baasa oo eegi mise way salaamaya gudaha markay soo galaan baa aqaaya ka soo fasaliyo wala doodaya wala baxaya dibadda oo qos adduunka dad isna cabi ma wada qoslaan adduunka dad isna cabi isma salaamaan adduunka dad isna cabi wax isku haya wanaag ma dhex maro bal hadda eegi dadkii baa ayaa war dadkii inaan dadkii isay marka waa falanahay ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya hadii la awoodo war quraan la saaro war dalkii dadka quraan la saaro dadkii waa faran yihiin sababtoo ah dad waxa way smartiya oo aqli badan oo farsamo badan oo dhaqaaq badan oo ganacsiga yaqaan oo wax walba qabta marka waxaan si kale ku qaban meynay juub iyo jamaajuj baa lagu siday ku surgusaa iyo balaaya lagu akhri marka se gabigooduba yigi la isku jeedi meesha adduunka ku jeedin marka hore markii la arkay sabab iyo say dawladda Soomaaliya soo noqday baa isku jeestay yigi baa isku jeestay marka waxaan leeyahay ilaahay ummadda Soomaaliyeed khayr ha siiyo aabana sadaqada ha socoto aan ku celiyo kilibka qoor iyo halka barwaaqa ka dhacay daawada wanaagii aad geysateen iyo sharaftii aad sameyseen iyo sadaqadii aad bixiseen iyo liibaantii aad sameyseen daawada ku raaxaysta Aabe oo la qalayo oo qalinkiisa la dhameeyay ma sha Allah waxa dhaqaatir 5 nin baa saawdu taagay mise waa 6 tolo waa 5 waad aragtaa Aabe gobonimo ka dhacday waad aragtaa ya ما شاء الله يا ترى واجي هره يا إلى هذا محضر وهذا كان مضيه الصومالي برنامج كاشير قريب إلا أنه كأرق يسوي مساجد ساوي فديا وعوضها شوارع ستة يشار روح لي سأديابيس يوم عاوز يا 15 بنو أسد ستة تصبح يسرقني وكتاب كيس هلك وجهه ونوريه يا أيدينا أنت قرعة ودي على شيء قدر الجماعة وضي لقصد وبكل بسوق الجماعة يصير يقدرينيا ما أنت تصير كل قد جيا سيشر قريب برنامج وراك أفتح بري برنامج إفتيمينta XaqiiQooyinka ile wartan inta duub kulmi doono waxaan kaga tagayaa inaad channelka subscribe ku saartaan ayso indha waaweynaaninay channelka subscribe ku saar oo gambalelka furo oo sii share garay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh